inan baa buugga waxay gelisay gacanteeda midig iyo naaskeeda dhexdiisa ayay buugga gelisay kadibna waxaan sidii ka qaad waxa igu tiri wuu yidhi haddaad buuggaa qabato naasku ii qabtay waan garan waayay ninka maamulkaya saa ku fikiraya talow ilaahay uu garantii ka sitaa inaanu isagu biri xanuunsanaynin waxaad noo sheegtay isbarbardhigga waxbarashadii hore ee aad ka soo baxdeen iyo tan maanta maxay ku kala wanaagsan yihiin waxbarashada waa lacag yacni bal maanta ka wadaad hooyada xabadkeena aanad u awoodaynin ka waranba habeen kastaan ka agta hayso ama aabahaba ka soo qaad meelaha qaar oo kale yacni maanta dawladdeeni dhiig miirato ayaa isugu timid yacni kadibna bishii man mar iman jiray ama laba jeer iman jiray kadibna anoo bisha sida iman jiray toban buugna sitoo cusub marka nusaacaha la sii dareeriyana hablaha ma u dhiiban jiro saasaan ku rawxi jiray bisha dabana buugta halkaas uban kaga marka dawladda waad ka niyad jabaysaa moogtay daldan oo maqranaysaa dalkaagii xataa ina marka inaad sheegataad ka khashaafaysaa oo talo ma waxan baan ka soo jeeday ilaahay talo muxuu iiga dhalinayay meesha noocan caafimaadkaagu waa lacag macallin mise maamulka ka dooran la maxay anigu macallin baan dooranaa ardayga maanta ka dooran ardayga hore dooranaa adarka saamka inaan baa imtixaan wada ilaalinay uu ku adkay galaaskoodi ama khanu saacihii soo baxnay break time-kii anigoo dariiqa marana waxay ka tiri naawa kaa qaraciye ii soo dubo duhurka ii soo dir haddaba inaan naag dhan weeye haka xishoon lahayd bay leedahay macallinkay ilaalinay marka waxyaabana boardkaasna caawadeen imika saas oo fadhna biraal oranaya dawladda shisheeya ka dhaxadlaya oo maqranaysaa ama cadowgii gudaha la oranaya moogtay waxa taa ka daran dad baa jira maqranaysaa maanta aan xataa adu waa chance baa u yeelato lugahaaga ku socod aad tagtay meesha dad baa jira iyagu maanta aan gaarina raacin diyaarina maanta aan raaci karin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحاينو مانتا مرتينو معاني كينو وينا دكتور محمد عيسى هو وددك خبرة اللي قلته ميو فيل كان معالي نمو كسو جيري دوري 10 سنة وما 10 سنة ايه قدام بي مركا كسو دواده برنامج كينا عاوة وحاينو كغاهد دونا فيل كان محمد خبرتيسي معلمadiisii waxyaabii yaabka badnaa oo ku soo arkay intuu macalinka ahaa waxbarashada maanta waxbarashadii hore waxbarashadeena maanta maxaa ka siiya dhaqamada maanta teknolojiyada si waxbarashada u bedeshay waxa kamid oo kale in ka wareysanayna maxamed waxyaabo badan ay nooc ay gud marka dambe waxay nala geli doontaa waxbarashadan maanta ma tahay waxbarashada mustaqbalka xataa la doonayay maxamed ayaan bal ku soo dhaweynayaa hay maxad muddo kala maqnayn muddeenu soo weynay masha Allah hadda way soo qabanay bal ku soo dhaw maxamed inta maxaan ka ku daraysa way bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin magacaygu waa maxamed ciise xasan ibraahim waxaan ahay macallimada waxaan bilaabay 2000 aan ku bilaabay markaas malcaamad iyo home teaching 2003 waxaan ka baxay maxamed axmed cali haddaan dib ugu noqdo dugsiga hoose dhexe waxaan bilaabay 1999 magaalada Rabasa la yidhaaho oo ku taala cariga Itoobiya 2000 iyo 2000 waxaan ku jeedaa 1997 baan ka yimid Rabaso waxaan galay maxadka Cumar ibn Khataab la yiraahdo ee ku yaala magaalada Hargeysa 1999 baan ka baxay dugsi dhexe oo Carabiya 1999 laftiisii ayaan foowan Maxamed Cali galay kadibna Maxamed Cali waxaan dhameeyay 2003 markaan dhameeyay intii aan shahaadada soo qaadan ayaa waxaan shaqo ka helay dugsiga Ilays Primary School aan galay maadada xisaabta aan ku galay sanad aan xisaabta dhigayay sanadkii labaad ee 2004 ilaa 2005 waxa aan qaatay maadada Soomaaliga iskuulkii waan ka tagay waxaan tagay iskuul la yiraahdo Ummul Qur'aan waxaan ka dhigi jiray isin primary buu ahaa xisaabta iyo
السيرة النبوية. waxaan ku dhex waday home teacherno 2009 ayaa waxaan tagay airportka halkaasaan u shaqeeyey hay-adda naasha la yidhaaho 2024 baan ka imid 2024 ayaan haddana dib ugu soo noqday macalinimada oo aan hay-adda alhuda foundation alhuda schools aan ka macalinimada ka bilaabay iskuulka la yidhaha amal primary school sanad markaan dhigayey waxaa igu soo biiray inaan shiftigii labaadna ay ii buuxiyaan hay-addaasi oo alhuda primary school aan ka dhigo tarbiya islaamiya marka labadaa iskuul ayaan iminka joogaa haddaan dib ugu noqdo waxbarashadaydii sekondary ka dambeysay waxaan galay jaamacadda la yidhaaho jaamacatul culuum wa teknolojiya ayaan 2012 ilaa 2013 aan waday kadibna anigoo ashariica wal qaanuun qaatay ayaan xidhay kadibna waxaan bilaabay jaamacaddii dib uma noqon waxaan bilaabay beder 2018 accounting and finance baan qaatay 2021 ayaan qalin jebiyey iminka oo la joogo 2026 waxaan dhigtaa postgraduate alhuda university. aad iyo aad umahadsan tahay saad nagu soo koobtay khibraddaadii maxamed wadeen iska gudagalno barnaamijkeena bal waxaad noo sheegtaa isbarbardhigga waxbarashadii hore ee aad ka soo baxdeen iyo tan maanta maxay ku kala wanaagsan yihiin maxay ku kala xun yihiin maxaad ku kala xasuusataa adoo soo koobaya. bismillahi raxmaan raxiim waxbarashadii hore meel ahayn wax facilities ah ama wax kuu fududaynaya oo aad ama tv aad ka heshid ama aad media ka heshidi ama bugaag aad heshidi may lahayn wax facilitated waxaan xasuustaa waqti aan rabasa joogay oo cariga Itoobiya ahaa in macallin noo dhigi jiray uu haystay kitaab 40 uu soo amaanaystay maalmaha kamid ah ayaa kitaabkii qof qariyay ama kitaabkii baa la waayay kadibna noloshiisa inaan kitaabka helayn kitaabka la iska dhaafay ayaa niyadiisa gashay sheekh maxamed dalon jiray ilaahu naxariisto tiir buu nagu xidhay wuxuu yidhi de kitaabkan hooyadiina aabihiina garan maayaan iduguna garan maysaan halkaasaa diinta laga taagnaa oo kutubta laga taagnaa mar damba ayaa kitaabkii lasoo helay halka maanta kutubtu ay muush nagu tahay maaduguna uu muush inagu yahay ay barafada jiraan ay iskuulla jiraan ay online lagu baranayo fasilitieska iyo howlfududaynta maanta la haysto lama haysan laakiin caqabadu in maanta taagani way ka mashquul badan tahay way ka saaqinimo badan tahay waqtigii hore maxaa yeelay qofku wuxuu isku haleynayay looxiisa looxba cashar lagu qorayaa casharka lagu qoro bari wal masaxaya meel kale oo reference oo casharka u doontaa ma jiro marka haddii ay casharka aad maskaxda iyo awoodda saari weydo casharkaas ku dhaafaya marka waxbarashadii hore way ka mashquul yareed waxa laga yaabaa xaafadda inaad waqti u shaqayso waqti yar kubadda yar ciyaarto waqtina aad casharadaada laakiin maanta miidiyihii iyo moobilkii iyo saaxiibkii xumaa iyo balwadihii ayaa maanta jira oo waxbarashadii iyadoo facilitieskeedu badan yahay ayaa haddana ay ka caqabad badantay. maxamedow waxaa la is oran karaa waxbarashadii hore waxbarashada maanta koley caqabadeeda way leedahay halkay waxbarashadu maanta ay ka leecday baa la oran karaa se teknolojiyadu waxbarashadii kormey u qaaday mise hoos bay u dhigtay. bismillahi raxmaan raxiim horta iskuulladeenu waa 12 sano la dhigtaa 12 sano la dhigto waxbarashadii iyo teknolojiyadii wax isku xidhan maaha haddaad saynis dhigayso macallin project risita oo ardaydii miidiyahan ay maanta wadaan iyo maadadii isku xidhaya ma jirto ardayga samarud buu imanayaa casharkii qalin buu soo qaadanayaa sidii berigii hore ayaynu casharka u dhiganaa marka miidiyaha faa'iidadu leeyahay iyo waxbarashadeena iskuma xidhna. maxamedow bal isbarbardhig baan ku sameynaa taasi waxa ka waxbarashadii bal ardayga waxa isbarbardhigayna ardaygii hore adigu aad ahayd iyo ardaygan cusub ee maanta ayaan bal isbarbardhig ku samayn doonaa bal xagga dhaqanka xagga akhlaaqda xagga ixtiraamka macalinka iyo waalidka bal ardaygan iyo ardayga hore bal isbarbardhig maxamedow. xamso horta ardayga hore haddaan ka horeeyo ardaygii hore arday waalidkana ka dambeeya macallinkana ka dambeeya ardaygaasi saaqid ba ahaado
casharadu ha ku adkaadaanba laakiin qiimkiisa iyo akhlaaqdiisu waxay ahayd mid aad u fiican bay ahayd. waxaa laga yaabaa qof weyn in uu qofka keeno walaalkii ama garaaco ama u hanjabo, marka qofka weynidii iyo macalinimadii iyo waalidtinimadii ayaa tixgelin ay jirtay. maanta ardaygu wuxuu dareemayaa dhaqamo kale ayuu soo qaatay. dhaqamada kale uu soo qaatay waxaa ka mid ah reer galbeedkoo kale, dhaqamo haydan curriculum baa la idhaha. waxa weeyaan manhaj qarsoon oo manhajkan dhigana aan ahayn ayuu qofku soo qaadanaya. wuxuu ka soo qaadanayaa bulsho kale, telefishinno kale ayuu daawanaya. taas waxay keenaysaa markaas inuu macallinkii u arko qof caburinaya, qof lamida wuu yahay, laakiin haddana ixtiraamkii macalinimo maanta wuu lunsan yahay, aad buu lunsan yahay. waxaana ku salaynayaa inay midiyaha iyo waxaa dhaqamada iyo kale inay sakuto. maanta dee waxbarashadu maanta akhlaaq ahaanta way dhimatay, waanba dee macallin baan ahaa waan kuloogahay, iyo xaggii magaraysa marka la eego aqoon ahaan dhaqan ahaanba. oo iminka su-aashii haddaan kusii xidho aqoontii hore iyo magaraysa ardaygii hore iyo ardaygiina aqoonta maanta way kala duwantay. anigu waxyaabaha xasuusta waxaa ka mid ah dhowr sana ilaalada ku jiray. anigu badanka arday waxaa isku soo gaarnaa xagga ilaalada badanka. waxaa arkaysaa arday inay dhaco iyo inuu baastaa isku mid u tahayba. inuu dhaco inuu baastaa waa waxba $100 baa ka xiga. waayo muxuu arkayaa mid kaloo halkan darabooda xafiiskii daawud tegey $100 laga qaaday baasay gebigiisba ee soo qaatay iyo 12 sano wax soo dhiganay. markaa dawladuna qayb horta ay ka tahay hadda systemkan jira. waxyaabaha anu arko badanka waxaa ka mid ah akhlaaq xumada maanta ay maraysa hawshu. inan baad arkaysaa imika inan baa imtixaan wada ilaalinay uu ku adkeey galaaskoodii markaanu saacihii soo baxnay break timekii anigoo dariiqa marana waxay ka tiri naawa kaa qaraciye ii soo dubo duhurka ii soo dir. hadda waa inaan naag dhan weeye haka xishoon lahayd bay leedahay macalinkeeda ilaalinayay. marka waxyaaba noocaas oo kale bal maxamed markaa adaa watable anma qisooyinkan la yaabo waxyaabaha sida kamid soo maray maanta ma jirta intaa fiilka macalimada ku jirtay qisooyinku soo maray ama kugu la yaab badnaa ama kugu naxdin badnaa ama kugu fiicnaa. bismillahi raxmaan raxiim. horta xamsow badanka ardaydu 100% way ixtiraamaan. ardayda aan u arkin inay rabshad wadaan, haddana ardaydaasi 100% saanay macalimiinta kale ku ahayn ayaan dareemaa inay igu yihiin. taasna waxa weeyaan feedbackgeygii hore ayaa wuxuu u badnaa diin buu u badnaa ama yahayba. kadibna qof sheekha ayaa badanka dadku igu tiriyaan, daqaarada sheekha baa igu sheegaan. marka anigu iskuma haystay, laakiin arday baan isku haystaa. laakiin horta qaab ixtiraam ah oo diinihi ka muuqato ayaa dadku ii tixgeliyaan ardaydu. ardayda maanta joogtaa kuwa dawligu ha u bataan. horta xafiiskaa daadugweyne haddii aan carab ku dhufatay waxaan ku xasuusto waxa kowka ah aan soo dhexgeliyaybe in shahaadooyinka uu bixiyo ilaa intuu qabsaday aanay wax foojiriya aanay lahayn. aan ku soo noqdo qodobkan ah ardayda maanta iyo dhibta haysata. ardaygu wuxuu ugu talagelayaa sida telefishinada aynu kuwaas Soomaaliya ka daawanay iyo kuweena waan ka daawanay. ardaygu waxbarashada ma jecla. jacaylka aan waxbarashada u qabin ayaa keenaysa inuu isku dayo nidaam kasta oo qaldan oo macalinka uu ku qishi karo oo macalinka kula dhaqmi karo. marka jacaylkii bulshada dhegeysanaysa waxaan aad ugu boorin lahaa inuu qofku aanu odhan maada hiblaya jecesha waxa ka horeysa waxbarashada ma jecesha. marka qaabkan ardayda waxbarashada u jeclaysiin lahayn ayaa muhiima. taasaa caqabada keenaysa ah inuu ardaygu dhaqankiisa xumaado, inuu waxbarashada waxba u arki waayo, in dadkii ka horreeyey ay shaqooyin jaamacadaha ka baxay inay shaqooyin iyagoon helin ama ku ildiiloonin arko. taasaa keenaysa ayaan filaya. marka anugu caqabadihii laga sheekeeyey oo nin sheekhu iga sheekeeyey ee qishka ku saabsanayd waxaa kow ka ahaa. wuxuu ihi Boreman ilaalin iskuul bas baan soo wada raacnay. ninkaa waan nin sheekha ahaa diin ka muuqato oo masaajid ka soo baxay oo salaad ka muuqata ahayd waan ka rumaystay. wuxuu ihi inan baa buugga waxay gelisay gacanteeda midig iyo naaskeeda dhexdiisa ayay buugga gelisay. kadibna waxaan sidhi ka qaad.
waxa igu tiri buu yidhi haddaad buuggaa qabato naaskuwii qabtay haddaad u bedheeriso anu taasaan odhanaya macalino haddaad buuggaa qabsato buugguna waa buug ay samiri ku samaysay oo maadadii ka turjumaya oo ay u badheedho qishiso markaa dee arday halkaa maraysa ayaynu haynaa arday fiicanna waanu haynaa isku jiraan ardadu laakiin caqabadda koowaad waxa weeye in jacaylkii waxbarasho in dadka ardayda la geliyo maxamedow waxaa jira dood ah dugsiga dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo maa fiican xagga qiimaha iyo maa hooseeya maa sarreeya xagga tayada xagga akhlaaqda xagga agabka iyo xagga mustaqbalka bal kusoo dhow xamso aad baad mahadsan tahay wareysigaas waa wareysigii koowaad aan bixiyo saa u dheer xamse aad baad mahadsan tahay aan kusoo dhowaado iskuullada dowladda waan soo maray kuwa barefetkana waan soo maray maraan arday ka ahaa iyo maraan macallinka ahaaba iskuullada dowladda aad baa looga fiican yahay aad iyo aad ayaa looga fiican yahay sababtuna waxa weeye ardaygu attendance ma laha buuggiisa inuu laylis lagula xisaabtamo ma laha la xisaabtan dhammaantii maba lahaba automatically arday isaga ilaahay u diray intee waxbarashada u diray mooyaane anu markii aan maxamed calaan dhigani jiray dugsigayga markaa ma ceebeynayo laakiin daa xaqiiqdu waxa weeye waa iska dhintara maaha maxamed calaan dhigan jiray form 1 si fiican ma iskaga dhiganayay form 2 markaan sii dhammayn doono ayaan iskuulkii nacay iskuulkii aan nacee maamulayga la xisaabtama ma jiro arday fiican baan ahaa arday lagu xisaabtamaan ahaa ardaygii wanaageygii hore ayuunbay macalimiintu igu tixgelinayeen kadibna bishiiban mar iman jiray ama 2 jeer iman jiray kadibna anoo bisha sida inbaan iman jiray toma buugna sitoo cusub marka nusaacaha la sii dareeriyana hablaha ma u dhiiban jiro saasaan ku rawixi jiray bisha dambana buugta halkaas baan kaga tegi jiray saasaan form 4 ku dhameeyey maxaa yeelay macalimiin qaysha macalimiin hadda su'aal weydiisa ah hiiftamaya ayaa ku badan dowladda marka iskuulka dowladdu la xisaabtan ma laha mar dhow wuxuu ku xisaabtamaya muruqaygu ha ii gooyo muruqaygu imtixaanka ha ii gooyo maxamed bal manhajka waxbarashada badanka waxaa aan social mediaha ardaydii oo ka cabanaysa manhajkii oo leh manhajka tayana maaha manhaj dee farsamo ama waxa maanta ku shaqo karo naga caawinaya maaha bal manhajka naga caawinaya maxamed oo kale dee dhowr iyo 20 sano macallimadu haya dhowr iyo 10 sano xagee kaliida ciradu manhajka ciradu ma ardayga ma manhajka mise waa ardayga ma hab diyaarinta sidee loo xoojin karaa haddii manhajku khaldan yahay bal kusoo dhowaataa bismillahi raxmaani raxiim walaal manhajku wax badan baa ka qaldan tarbiyada islaamiga ayaan dhigaa tarbiyada islaamiga 1 ilaa 8 haddaad ka soo qaado ducooyinka waan aragnay ducooyinka adkaartu kitaabka qur-aankana ku qoran yihiin xadiiska nebigana ku qoran yihiin fiilkaa dhan ee ducada ahi waxaa laga yaabaa 6 duco ama 5 duco koo kooban inay ku jiraan manhajka dhan ilmaha yarna wuxuu u baahan yahay markuu 3 yahay 4 yahay inuu ducooyin badan la qaybsiiyo ducadii seexashada ducadii toositaanka ducadii suuligu ku galayay ducadu kaga soo baxayay ducadu guriga ku soo galayay ducadu kaga soo baxayay tusaale ahaan tarbiyadaan soo qaadanaya waad arki kartaa manhajkeenu waxa weeye waa manhaj copy and paste kula khayr badan uu leeyahay oo islaamaad dejiyey laakiin haddana waad arkaysaa inay shay ducadii ka maranba ma odhan karno waa manhaj dhammaystiran mustaqbalka waxbarashada somaliland marka hore mustaqbalka waxbarashada somaliland kolley baastig waa kasoo runtay hadda beritanka la marayna waynu ka hadalnay bal mustaqbalka waxbarashada somaliland haddaad noqon wasiirka waxbarashada maxamedow muddo hal sano oo qura chance lagu siiyey maxaad bedeli lahayd tusaale ahaan oo kale maxaa looga baahan yahay oran lahayd macalimiinta ka bedeli lahayd manhajka ka bedeli lahayd sidaad u kobcin lahayd ardayda dugsiyada jaamacadaha soo dhow bismillahi raxmaan raxiim haddii jaaniskaas sanadkaan heli lahaa oo ka soo qaadba horta bilicdu way qayb ka tahay meesha arday ku dhiganayo inay bilic yeelato oo dhismo fiican yeelato oo yeelato waxbarashadii ka turjumaya ay galaasada ku hor yaalaan maxaa yeelay indhuhu ilmaha yari markuu ku qabto intaasoo formulo oo xisaaba markuu ku qabto subax walba indhihiisa maskaxdiisu way kobiyeynaysaa marka in bilicda horta iskuullada la hagaajiyo taana waxaan ugu hambalyaynayaa maayir cabdikariin
axmed mooge oo iskuulo badan oo dowladda ah bilicdoodii hagaajiyey bilicda marka laga yimaado kow waxa ka ah manhajku waxa weeye manhajku waxa ka horeeya macalinku waa inuu macalin trainera oo la diyaariyey uu noqdaa oo mu'ahala oo la diyaariyey oo wax dhigis loo diyaariyey waa inuu noqdo oo trainino macalimiinta ah ayaan qaban lahaa manhajkana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan wax uga bedeli lahaa maxamed gunti gudaadalkii inta ayn ku jirnaa qaybteena hore waraysigeena su'aalo degdegaan ku weydiin lahaa oo gebigoo haaya maya macalin mise maamula kaba dooran lahayd maxamed anigu macalin baan dooranaa ardayga maanta kaba dooran lahayd ardaygii horaan dooranaa waay dugsi dowle mise dugsi gaar dowle kaba dooran lahayd dugsi gaaraan dooranaa buugad mise internet yani berigi hore buugaad too qulahayd maanta waa internet bajec kee wax ku baran lahayd maanta dooran lahayd internet imtixaan badan lagaa qaado iyo in xirfad badan lagaa qaado keebaad dooran lahayd marka waxbarashada joogo xirfad badan theory mise practical waay maxay tahay hal buug oo aad ku tahan lahayd arday kasta oo akhriyo hal buug oo qura hal buug oo aan ardaydu akhriyaan aan ku talin lahaa ma maadi mise diini labadaba maadi horta diinigaan ku horeeyo diiniga waxaan odhan lahaa xadiisul arbaciinka qof kasta ha akhriyo isagoo shuruuxdiisa wata maadiga waxaan odhan lahaa ibraahim alfiqhi kutub badan buu leeyahy kutubtaa uu leeyahay mid ka mid ah hala akhriyo hal sifo macalinka wanaagsan leeyahay iyo hal sifo ardayga wanaagsan leeyahay ardayga wanaagsan sifo uu leeyahay waxa weeye dee ixtiraam la yimaado macalinkuna inuu ku dayasho leeyahay qof lagu daydo u noqo etoobiyaad ka timid caafimaad baad u tagtay etoobiya allah ku caafiyo ummadda wixii ku wada ilahay ku caafiyo caafimaadkii waad ka timid hargeysaad timid dood baa hargeysa jirta la isbarbardhigay caafimaadka waddanka iyo caafimaadka wadamada jaarka in la sida etoobiya oo kale bal doodaa intiina maxamed oo aynaan gelin waxa la leeyahay dowladda cashuur bay qaadaa milyanis dollarisay qaadaa waana meesha qudha soomaaliyeed ee cashuur intaa aleega laga qaado weeye haddana cashuurtaa waxa ummadda kaga soo xabirati ma jirto marka qaar dowladda waad ka niyad jabaysaaba moogtay daldan oo maqranaysaa dalkaagii xataa ina markaa inaad sheegataad ka khashaafaysaa doonaysa talo ma waxan baan ka soo jeedi ilaahay talo muxuu iiga dhalinayay meesha noocan caafimaadkaagu waa lacag waxbarashada waa lacag yani bal maanta ka wadaad hooyada xabadkeena aanad u awoodeynin ka waranba habeen kastaan kaaga tahayso ama aabbahaaba ka soo qaad meelaha qaar oo kale yani maanta dowladdeeni dhiig miirato ayaa isugu timid yacnihii maanta ninka ganacsiga uu iibsaday dee ninka madaxweynuhu kusoo baxay waa looga ninka wasiirkiisu kusoo ninka xildhibaankii kadib maxaa dhacay dee waa lagu iibsay beri ka sheekeymaysa kaasi dawo dhacuu keenayaa kaasina wuxuu keenayaa raashin dhacay buu keenayaa dee wuxuu laga dee maqnaysaa hadli maayo mugta waayo sababtoo ah madaxweynuhu iibsan wasiirkuna waa iibsan okay aan iibsanayne dhinac fiican ka soo koray tilaanka siyaasadana markaasaa guriga gaari loo dhiibaya af wax xun xishood markaasuu aamusaya marka horta dee marka qaar waxaa ka sheekan kartaa inuu Soomaaliland maxaa u tahay Soomaaliland daraf maxay macnaheedu soo kordhinaysaa ictiraaf baa la keenay dadkii u dabaaldegay baan ku jiray laakiin markaan ka khashaafay markaan daawado dabaaldegii berigaan sameeyay waxyaabaha waxaan talo maanta maxaa isbedelay maxaa isbedelay dee waxaa la ictiraaf baa la keenay waddanku waa isbedelaya barwaaqa cagaa la gelayaa suqaar baa la daadinaya wax isbedelaya ma arkayo aan ku soo dhawaaday anyway bal Ethiopia ka timid bal waraaqii caafimaadka wad si daawaan filayaaba dawada lagu soo qoray kuwii dawada lagu soo qoray dee adaa khibrad leh anigu waxaan maqlay imika maalmahan oo kale in dad qaar halkaa ka yimid oo ay leeyihiin waxbarasho caafimaadka halkan iyo caafimaadka halkaa kaasaa ka tayo fiican kana qiimo jaban waa tiyari anu ma tijaabin deen mana xanuunsan cidnayga ma xanuunsan ilaahay niguma keeno bal adigaa soo maree bal maxaad haysaa bal ii wad sheekada bal ii waran waay bismillahi raxmaan raxiim waxaan imid caawa maaha isniin maaha caawa axaddii hore ayaan imid ethoobiyan tegey waxaan raacay marka hore halkan baan ka tegey marxaba bas baan raacay wajaale ilaa jigjiga waa ii xiriirsanaa markaan jigjiga tegey waxaan ka raacay basas ethoobiyan oo golden bas la yidhaha ka raacay waddadan markaa aan u badheero markaa waddadan maray aan mara waddadii markaan meeshii tegey adiis dhakhaatiirteeda waan la kulmay dhakhaatiirta hargeysana waan aqaano waan la kulmay
أديس إنك خطير فينا أنا تحنقر يا خاطرتين من آد وفي عين لكن أديس مد بين ودانتا حاجة خرجك كاجا بحيا خبرة اختار نمو أرجيسة يعني خديت الشوكته يكون أديس شوكة أنا والله كلمي إنك هرجيسة شوكة اختار وينه اللي يقاني آد بن بوجادينية آد بن وفي عينه إنك ما اختار خاطر فينا لكن ما حنقول أمان وحنقول أمان دودي شيء بار وهايستان دودي يجو صوص صاريان دودي قار كميدا ودك هذا القصة صارا ودوا كستو أو ودك هذا القصة صارنا صار أحمرتنا شيء بار بالقص ودوا الصح والله هو التيري ده قضى كلام كان كدوا دعوة لكيني الآن وقت شيء بار كان نقول أمان قضى كلامنا نقول أمان حويان خرج كأد اختار كوجليسو ملها قار اسكمي بين قلنا خدير تقارن إياه نقد شمال تصالحان MRI قاكله هذا هو تيم MRI جا وحلية هالكان واستح $100 هالكا وا $25 لسته محكير CT سكان هالكان وحلية وح دي $30 مالها سو كلا إلى $60 هالكا وحلية واللسته $11 ساوا وحيابهن فرق انت وين إذا دود عشور بيقاطع كبا تشيرين لس إن لكبا وحن مهمة وحتى كدرنا هذا شو إمك بودكاست عاودين وإمك ساسا وفرنا بريال أورني الدول ده شيء كده حلية ومقرأ ساي أما بعده يجي جده على أورني مكتي وحتى كدرنا تبى تشيرين مقرأ ساي ما أنت أنا حتى هذا كان سبوي يطلقها حاجة هذا قصة تختمش تبى تشيري وما أنت أنا قاعد نرجع عند ديارنا ما أنت أنا راعي كريم إنك هتبدأ ما تعبينه كان كوهيا ليس وديجي بورا موكله للي يكليه مشين كله يكليه العق بحيا وضوا ونقرنوا يبني كمان القاية ساكو فكرية بتروا من إلهي وجارانتي كسيتها إن أنا يسوي بريحة نسنيني وحيابا قارن لا يبي كمثل إنك حيابا قارن حتى أنا ليس وديري ده ما صوا برني كراي ده قلبي قد دي موت ما دوي ذاك نمور كذا كعياره وح كله يمك قفبا كله يمك هالكنوا كله يعني وكله دوانيا مقرأة أيه حنشرق ديجا كقب قاتوي أيه رولي هاي واحد سميسا هذا ورثك تعلبه وأوجو فري وهاي ذا وبحنا وفري أيه نيكن كوميشن بو كايستا عستا برفض حو كودريا عسبتال برفض كودريا كل هاي قصيبسو يعني كوميشن أديك على اللي يفسنا إسبير باربات أديك بني آدم كهيو لهي وقت كرمان بني آدم وي فما كان محمد وبل أديكو إيجيا واحد تري خاطرته وينجا كفيان أما اسمه بيناني لكن واقيمه يدودي وطيسن ها سحوي لبدا سوي ها marka waxa weeyaan horta dawadii waxa laga yaabaa in tan ayno dawadan ay hayno inay la mid tahay laakiin ma cadeyn karno in ay shaybaar ma lihiin meel quality control saxa oo aynu leenahay ma jirto marka dawladdaasi waa dawlad horta inaga weyno dee sida diyaaradaheedu adduunka u kala gooshayaan ay horumarkeeduna u kala gooshayaan marka halkan soo koobee horta kharash ahaan way naga fududahay iyadoo safar lama baxayo oo guri karaysanaysid oo turjumaan qabsanaysid oo cuntadaadii ayaa haddana aanay hargeysa u dhigmin marka xagga aan soo koobee xagga dawada soomaalida xagga waxay ku sii yaacaysaa waxa weeye waxaan kalsoonida ayaa self confidence-ku waa muhiim dadku meel bay aaminaadii in laga soo celiyaa muhiima mishiir lama waayin qolada quality control-keena ee waddanka waxaan kula talin lahaa in ganacsadayaasheenu intaasay lacag ku bixinayaan siyaasad in ay ku bixiyaan wixii dadkan shaybaadhkooda lagu baari lahaa iskaan ka doontay adiis baa had adiis gebigaygaba dhammaan mishiinadii aan soo mariyey oo dhan ifri mishiin kasta way mari jirka iskaan MRI iskaan gebigaygoo lestan wax ka yar $108 ayaa ku soo baxay maalmo ka horeysay ayaa waxaan ka yara cabinayay waagaa juuc xumad baa yara jirtay kadibna waxaan sameeyay barma iskaan ismarisi gebigaaguba dhakhtarkan gaar baan tago $420 bixi baa lagu yiri $420 ma bixi baa Ethiopia u socod marka ruuxa waayo waa simcano waan baxay safarkayga marka laga yimaado mishiinadii aan hargeysa ku $420 $108 ayaa waa dhakhaatiirta ugu waaweyn adiis weeye $108 dhibaato haye ma ka dhax galo sax
qodob ayaa sabab u sameynaya صح maalgelinta dowladda waxaan qalabkoodii ay wax ku baadhayeen fududeeyey waxaa qayb ka ah maalgelinta dowladda تينو محي قمنا سما تبرو مسا kolley teenu dhinaca bay u rarantoo qaybta siyaasadda iyo kursiga wax ku doonka ayaa ina shaqeeya aduu loo soo jeedin ka hadii loo jeedi lahaa wala qaban haddii daacad laga yahay waxa weeyaan dad badan ma gaadhi lahayn waay halkaas ku soo gaarnay barnaamijkeena maxamedow waxaad ka tagto ku daray saxbeera tii mi jirtaa intaan soo xilin barnaamijkeena waayahay waxaan ku darayaa in madaxda qaranka aan u duceeyo allahumma ilaahay madaxda aan dalka noogu dhiibtay ilaahay noo hagaaji ilaahay wixii ka qaldan ummadooda ay ka gaabinayaan ilaahay oo tus ducadaas baan kusoo koobi lahaa iyo xamsoon leeyahay aad baad mahadsan tahay waa maantii koowaad aan wax duubo aad baad markaa kuusi dhaweyn aad iyo aad mahadsan maxamedow maqsib kuwan kula yaaduna saa wareyskan ugu aqbashay muddo dhaafinaysteedayni haddaynu jaanis isku helnay baan filayaa ilaahayna maqnaasaay si xaqa isaga garanaye hayna garansiinada dhammaantiinba aad iyo aad u mahadsan saaxiib idinkuna dhammaantiinba waa maxamed ciise oo maqnaasaay ahaa macallin kamid ah macallimiinta magaalada dhowr iyo 10 sano in ka badan ardaydiisu xataa maanta dib maqnaasaay ay PhD sitaan qaarkood dib maqnaasaay dawladda wax ka yihiin qaarkood shirkada maanta maamulaan ay kala way garan doonaan maqnaasaay ardaydiisu caawa daawanaya iyaguna insha Allah marka barnaamijkeena oo kamid barnaamijyadeeni arrimaha bulshada inoo socday maalinba qaar ayaynu maanta ku casuunay maxamed martiyo kale oo soo socnay kala way casuumi doonaa insha Allah taala aad iyo aad u mahadsan maxamed jazakallahu khayr Allah ybarak